dastuurka dee dib u eegsiisu muddo dheer bay soo socotay oo 10 sano ah muddadaas dheer ay soo socotayna waxaa la awoodi karay in 2 bilood constitutionka lagu dhameeyo laakiin waxaa hor yaalay arrimo adag oo contentious issues la yiraahdo oo u baahan in go'aan siyaasadeed laga wada qaato siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ka qaataan gaar ahaan madaxda dowladda dhexe ee fulinta ay horkacayso iyo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka arrintaas aad bay u adkayd way dhib badnayd wixii inta badan hortaagnay ayay ahaayeen dastuurka anigu dadka soo shaqayn jira ka mid ahay marka annaga oo ka duulayna khibradaas aanu leenahay iyo dhibka jira ee dastuurka si loo dhaqaajiyay in heshiiska la gaaro ayaa waxaan ku dadaalay inaan active garayno oo si weyn uga shaqeyno madashii wadatashay qaran NCC hadda labadii sano joognay up to now 9 kulan ayay yeelatay kulamadii hore dhowr kulan oo dabcan waa loo dhamaa Puntland kama maqnay waxaan gaadhnay marka heshiisyo culculus oo ay kamid tahay qaab dhismeedka hay'adaha amniga طبعا Puntland way joogtay heshiiskaasna qayb uu ka ahaa madaxweynaha Puntland waxaan gaarnay hanaanka garsoorka iyo cadaaladda dalka waxaan heshiis ka gaarnay hanaanka awoodaha laamaha dowladda waxaan federaaleynta awoodaha laamaha dowladda waxaan heshiis ka gaarnay federaaleynta nidaamka maaliyadda dalka waxaan asagana aan heshiis ka gaarnay nidaamka doorashada ee dalka annagu heshiis baan ka gaarnay laakiin waxaa iska leh constitutionka dib u eegistiisa finally wax ka gaarintiisa shacabka Soomaaliyeed waxaana ku matalaya golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa ku matalaya طبعا ayagaan gudbinay waxay la tashadeen dadweynaha iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo cid walbaba waa u gudbiyeen taladaas markii ay soo dhameysteenna ayaga ayaa akhiran jeexay ama ogolaaday hawshaas amendments farabadan ku sameeyay qaybo kamid ah gaar ahaan qayb siyaasadda maxaan ku dhaca cutubka afraad marka 5 cutub ayaa hadda ansaxay oo maxaan ku dhahaa dastuurka ka dhaqaaqay oo طبعا arrimaha siyaasadda markii la soo xaliyay istahlanaatay in baarlamaanku ay hor ugu socdaan arrinta doorashada de waad ogtahay waa run labadii waasaan sheegay inagoo waad ogeydeen doorashadii ugu dambeysay wixii inagu dhacay waad ogeydeen annagu waxaan isniri laba arrimoodba in laga dadaalo waa muhiim markaa nimidba kow in laga dadaalo oo ina dhicin in dib loogu noqdo jidkii adkaa iyo doorashadii dadka uu hebel soo qoranay oo aan sanadka ilaahay inaga soo samata bixiyay yani ya Allah oo wadanku uu khatar ku galay oo cid waliba ay ogtahay taas waa qodob inayna dib ugu noqon qodobka labaad asagana waxa weeye waxaan u leeyahay sandhicin sidii dhacday markay 9 bilood hartay inaan dhahno haddaan doorasho aadeen annagu marka waxaan bilownay sanadkii ugu horeysayba inaan dhahno wadanku wuxuu aadayaa doorasho qof iyo cod waana inaan hadda ka shaqeynaa shaqadaas marka waan ku dhaqaaqnay waanan sameynay